wali waxaad daawanaysaan war wixii gudaha idaafaca caalamka inaga soo gaaray Juba TV oo aad nagala socotaan markana akhbaaraadka dibadda. madaxweynaha dalka Kenya ayaa sheegay in dagaal adag uu ku qaadi doono musuqmaasuqa sidoo ugu ciribtiri lahaa dalka Kenya. madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto ayaa wacad ku maray inuu dabagal ku sameyn doono canshuur dhaafka iyo inuu laba jibaari doono ururinta dakhliga si ay gacan uga geysato bilowga kobcinta dhaqaalaha liita sida uu sheegay xafiiska madaxweynaha. hogaamiyahan 55 sano jirka ah ayaa sheegay in qofna uusan awoodi doonin inuu ka fogaado bixinta canshuuraha, wuxuuna saadaaliyay in dakhliga canshuuraha uu kor u dhaafi karo inta uu maanta yahay oo ah 1.8 trilyan oo shilinka Kenya ah oo u dhiganta 14.8 bilyan oo doolarka Mareykanka ah uuna gaari doono ugu yaraan 3 trilyan oo shilin isagoo aan sheegin waqti cayiman. Kenya ayaa waxaa ka jira musuqmaasuq baahsan oo uu sahlay in dad badan oo kamid ah maalqabeennada tirada yar inaysan bixin canshuuraha dalkaasi Kenya.